kulanti wanaagsan muuqaalkan waxaa idinku wadaagi doonaa lacagaha jaaniska ka banaan yahay ugu fiican ee la maalgashan karo 2025ka inta la gaarin hadda coinkan aan ujeedo hadda waa hashgraph ama hedera structure marka la joogo 1 hour structure fiican ayuu sameeyay tajka koowaad waa taabtay tajka labaad waa taabtay ka saddexaad qaybta hoose midka saddexaad ayaa u hartay kadib hadduu halkan ku dhaco hore u sii soconaa marka coinkan janis ayaa ka banaan oo hedera la yiraahdo ama habrar marka meesha uu u socdo marka waxa waaye si toos ah uu aadayo xaggaas ayuu ku dhacaa 27 markuu tago ayuu marka halkaas ku dhacaa kadib kor ayuu sii aadaa marka opportunity ayaa ka banaan coinkan waxaan loo yaqaanaa hedera ama habrar ayaa loo yaqaanaa ka faa'iideysan kartaa haddii aad rabto inaad ka dukaanaysi maal gashato marka waxaa la rajeynayaa marka coinkan inuu kor u kaco maalmihii ugu dambeysana aad ayuu kor ugu soo dhaqaaqay waa ujeedaan xaggaas ayuu kasoo dhaqaaqay loogaas ayuu joogay haddana xaggaas ayuu socdaa waa sida aad analyze gareynay sawirka qaado bal fiiri hadduu halkaas gaari doono insha Allah wuxuu u socdaa ilaa iyo 49 ilaa 45 ayuu u socdaa markuu gaaro ayaa isla sugeynaa coinka labaad waxaan ka dhiganaynaa asigana linear finance hadda wuxuu maraa 0.2 ayuu maraa linear finance waa shirkad oo real world asset waaye waxay ka shaqeysaa lacagaha finance ay ka shaqeysaa ma ayaa u taalo igana qiimahooda uu sii dhacsan yahay hadda 58 milyan market cap-kooda waa inaga hadda markii aan galeynay waxaan ka soo raacnay 77 ay ka soo raacnay 0.77 hadda wuxuu maraa ilaa iyo 80 ayuu maraa marka isagana janis ayaa ka banaan oo inuu sii dhaqaaqo kor uu sii socdaa la rajeynaa kan dhalada markii la aqriyo aad fiirisid hadda suuqan kor ayaa laga keenay marka salariska ama bearish kuwa la yiraahdo aad ay wuxuu gariyin sababtoo ah fiiqan markuu kandalka leeyahay oo hamarka ama u ekaado sidaan oo kale kandalka markii uu noqdo waxay cadeynaysaa in looga xoog badan dadka bearishka ku wax gadaayo in looga xoog badan yahay ay ku xoog badan yihiin meesha kuwa wax iibsanayo ama bullish kuwa la yiraahdo marka linear iyadana janis ayaa ka banaan waa ka faa'iideysan kartaa coinka saddexaad oo aan ku sheegi doono waxa waaye ego wuxuu ku jiraa hadda lacagaha trending ah ego sida ujeedid ego wuxuu ku jiraa lacagaha trending ama trending coins ka number 1 ayuu ku jiraa oo aad loo raadinayo ama la falanqeynayo ayuu ku jiraa labaadna waxa soo galay bitcoin marka trending lacagaha maanta aad loo hadlayo afraad saac ugu dambeeyay waxa kamid ah ego BTC Astrum Bright iyo Ethereum shantan lacag ay aad loo hadlahayaa marka ego kaalintooda ayuu soo galay oo surging-ka iyo analyze-ka iyo dadka adduunka oo dhan ay soo raadiyeen marka meeshaas waxaa kaaga muuqata waxaa marka lacagta haddii mar trend soo gasho waxa investment badan ay yeeli doontaa dhaqaaq fiican ay yeeli doontaa marka intaan laga hor dhaqaaqin marka aad dhaqaaq dhinac ka noqo markii aan fiirino ego structure-kiisa asigana structure fiican ayuu sameeyay oo kor uu sii socon karo hadda kandalkii ugu dambeeyay oo soo dhaqaaqay waa kana markii aan tagno marka waxaan fiirinaynaa trading view-ga ayaan tagaynaa structure ayaan saaraynaa markii 1 hour la joogo oo jeedo markii 1 hour la joogo buyerska xoog badan sellerska waxay dhaafi laayihiin demand zone-ka ama supply zone iyo demand zone wax la jiro xaggaas ayay dhaafi laayihiin inta wax jibiyo oo ka soo laabta mooyee xaggaas waa la isla dhaafi laayahay haddii mar meesha la isla dhaafi laayahay waxay caddeyn u tahay marka in trendingkii oo kor u dhaqaaqay markii halkaas ay dhaafi waayeen waxaa caddaad soo ma jeedid in trendingkii oo kor u socday marka wuxuu noqdaa suunka marka mid uptrend noqon doono waaya marka triangle-kan ayaa samaystay waa 1 iyo 2 waxa u dhaarta marka inuu xaggaas ku dhaco haddana hoos u soo dhuubto kadib hor u sii dhaqaaqo ayaa hortay structure-ka marka u hari karo waxa weeye inuu sidaas sameeyo kadib saan soo laabto kadib dhax haas u socdo marka wuxuu noqon karaa marka 0.06 inuu kor u sii aado hadda wuxuu maraa 0.24 ayuu maraa 0.06 ilaa iyo 7 inuu sii aado ayaa la rajeynaa marka ego channels ayaa kasii banaan asigana waa ka faa'iideysan kartaa marka one day la tago one day marka loo fiiriyo soo ma jeed all structure waxa waaye downtrend ayuu ahaa marka haddii uu soo ma jeedid xaggaas ayuu tagaa waa 59 ilaa iyo
xaggaasa marka supportiga labaad marka supportiga labaad 61 waay 61 markii la gaaro ayuu hoos usoo laabanaa haddana 26 ayuu soo laabanaa intaas marka adigu waa inaa usii dagroodaa oo aad diyaar noqotaa marka saddexdaa marka laga faa'iideysto eego linear habraar intaas waxaa waa jaanis ayaa ka banaan